Assalaamu calaykum. Ma taqaanaa magacyada bilaha miilaadigu meesha ay ka soo jeedaan? Waxaynu wada ogsoonnahay dhammaanteen inay taariikhdu tahay maanta 18 bisha May 2020 ee tirsiga gaalada. Laakiin ma taqaanaa taariikhda tirsiga Islaamku inta ay tahay? Waa wax aad iyo aad u xanuun badan inaan hidaheennii Islaamka ahaa aan ka weecanno, isla markaana aan ku dhaqanno waxyaabo kale oo ay gaaladu inoo soo waarideen. Taasina waxay keentay in Islaamka la dulleysto. Haddaba, maxaad ka taqaanaa micnaha iyo asalkii hore ay leeyihiin bilaha miilaadiga magacyadoodu? January ama Janaayo waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Janus oo ahaa sanam ay caabudi jireen Roomankii hore, waxaana ay u yaqaaneen sanamka albaabada iyo waqtiga ama bilowga iyo dhammaadka. February ama Febraayo asal ahaan ereygani waxa uu ka soo jeedaa Febra oo micnihiisu yahay isnadiifin ama isdaahirin. Waxay xilligan oo kale samayn jireen Roomanku isnadiifin iyo daahirin ay ku samaynayaan dhammaan deegaanka, kaasi oo ay ku raali gelinayaan sanamyadooda. March ama Maarso waxa uu ka mid ahaa asnaamtii ay caabudi jireen Roomanku, waxaana u yaqaaneen ilaaha dagaalka. Xilligan oo kalena waxay samayn jireen dagaalada u waaweyn ay galaan. Abriil waxay asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Abriil oo macnihiisu yahay guga ama xilliga barwaaqada lagu jiro, waana xilliga ay beeraha falan jireen, dhirtuna u baxaysan jirtay. May waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Maya oo ah sanamka xidigaha. Xilliyadan oo kalena waxay samayn jireen xidigiska. June waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Junius ama Janius oo macnihiisu yahay dhalinyarnimo, waxaana xilligan oo kale samayn jireen dabaaldegyo ay ugu tala galeen dhalinyarta. July waxa loogu magac daray boqorkii Roomanka ahaa ee la odhan jiray Julius. August waxa loogu magac daray boqorkii labaad ee Roomanka, kaas oo la odhan jiray Augustus. September waxa uu ka soo jeedaa asal ahaan ereyga Septa oo ah lambar 7. October waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Octa oo ah lambar 8. November waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Nova oo ah lambar 9. December waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa ereyga Deka oo ah lambar 10.